waxay ahaayeen class runtii tiro badan oo classka ugu tirada badnaa soo mara guusha ay soo hooyeen waxay ahayd guul aan runtii laba ilaawana ardayda kaalmaha sare nasiibka wanaagsan ee kaalmaha sare dugsiga ka gashay Soomaaliland ka gashay baan maanta insha Allah ku soo wareegay maanta ardaydii ka baxday intoodii badneed macallimiin bay ka yihiin waxa jooga iskuulka 10 macallin oo xataa lagu daro gudoomiyaha waxbarashada degmada macallin buu ka yahay oo 3 xiisadood buu 3 fasal u kala dhigay macallin maanta la oran karaa iskuulkii uu ka dhiman yahayna ma jirto runtii de noogu filan mushaarkeygana waa qaadan oo dawladana awoodeedii waanu ka helnaa waad aragtaan oo maanta farxad weyn bay noo tahay hoolkii imtixaanka laga qaadayay 3 iyagoo isku xiga la yeedhiyay dhowr iyo xilfeen bay ka soo baxeen farxadda aan farxay Ilaahay un baa ogaa dugsiga hoose dhexe dhool yare ardaydu waa ku badan tahay oo ugu yaraan 5 kalaas oo dheeraad ayuu baahan yahay wasaaradda waxbarashada waa noo geynay wasiirku waa saxiixday waana soo socota insha Allah taala dugsigaasna dhismaha waa leenoogu soo kordhinayaa dugsiyo kale oo insha Allah qalab loo keenay iyagana oo aan kuraasti iyo agabkii kale lahayn oo iyaguna noo hirgalay waa jira sida dugsiga bixin sidoo kale gaariga degmada Ceelafweyn ama gaariga wasaaradda waxbarashada ayaa isaguna lagu soo sameeyay dayactir hadii aynaan ubadkeena waxbarin oo kuwa deegaankeena aan aqoon lahayn waxba ma qabsan karo horumar la'aanta aynu ka cabanayno gaar ahaan degmada Ceelafweyn waxay ku xiran tahay waxbarashadeena ubadkeena wax inoo soo bartay inooga shaqeynaya horumarka bulshada iyaga inooga shaqeynaya horumarka dhaqaale iyaga inooga shaqeynaya maamulka degmada oo iyaga barida maamulkii noqonaya wax walba waxay ku xiran tahay waxbarashadeena sadarteed wax moodaa guusheenu inay gacmaheena ku jirto waa ogtiin imtixaanaadka qaranka oo dhan in 3 ardayba ay ku guuleysteen dugsiga sare ee SOS oo dugsiga Soomaaliland ugu qiimaha badan loolayra marka leeyahay waxaan leenahay qofkii magaca ka taga waxaan leeyahay xubin xaasidi wax qabadka ugu weyn iyo aayaha maanta aynu joogno waxaynu ku dugsanaynaa waxaanu qabnaa waa magaca sababtu waxa weeyaan waa taariikh la xasuusto marka taariikhda dib loo raaco waxa lagu dhisay waa gabadh magteed oo reer ka dhalatay waxaan leeyahay qof islaam ah oo degmada Ceelafweyn kamid ah oo gabadha dhiigeedii ka sharaf badnaa ma jiro ilaa kana ajarkii waa u durduraya iyaga waalkeed inagana waxa loo inooga baahan yahay sidaa iyo sileeg inaynu nafteena u hurro dhiigeena u hurro ubadkeena iyo wixii kale ay wax tarkooda u hurro aynu waxbarashada sidaa u taageero waayo haddii aan maalinta gabadha dugsiga laga dhisi lahayn